السلام عليكم حرجينا أنا في عنتين دمانتين بمانت حندوني أنا نكهضو موضوع دوران ولش هذا أديكو يسن عندنا كو دورين موضوع عن أنت أنا جدا قلين وحو سجارة أخو سياس ديري تومن سنة إيو كوين أما ككر قالوا وحي قبان فكر إن قف كستدي تومن سنة وكوان قالوا وحي استدي تومن سنة كير وما ركتي وياه قف ير أو قعنت والدكي كشرة أو لوطة اليوم مسلمين بدنا إلا قبتين قف كستدي تومن مركو قالوا قف وين إنك استودي الدين الإسلام كويس أنا هن قف كونو استدي تومن سنة دا كوان قالوا لكن dhinac kale marka laga fiiriyana 18 sano inta aad ka yar tahay ma tihid qof go'aamadiisa qaadan karaya ama kaligii tashan karaya ama wuxuu rabo sameyn karaya ama guriga waalidkii ka tagi karaya xataa ilmo yar oo gacanta lagu hayo wax la barayo dugsi sare baad ku dhamaysaa 18 dadka qaarna korbeeba ku dhameeyaanba waa sidaan anigu qabe Soomaalidu waa dadka kaliya ee laga helo 20 jir loola dhaqmo sida ilmo yar oo 2 jir ah go'aan aan qaadan karin waxba aan sameyn karin meeshuu marayo guriga waalidkii ku dul nool oo loo ogolayn xataa inuu safar kaligii aado meel kale uu aado dooro waxa aad baranaysid iyo halka aad ka baranaysid intaba dugsi sare markii aad qofku markuu dhameeyo qasab ma aha qofku inuu ilaa heer jaamacadeed waxbarashadiisa uu sii wato laakiin haddii uu isagu damco inuu sii wato oo doonaysid inaad sii wadatid markaad dugsi sare dhamaysid dooro adigu waxa aad baranaysid doorana meesha aad ka baranaysid aad is leedahay meeshaas aad ka baran karaysaa dantaadu ku saamixi karaysa iyo duruuftaadu ma ahan in adiga lagu dooro waxa aad baranaysid ee lagu dhaho waxaas baro meeshaana ka baro xayla waxaad noqotay qof weyn waa inaad qaadatid go'aamada noloshaada adigu ugu noolaatid noloshaada adigu sida aad doonaysid sax waad u baahan tahay in lagu hoga tusaaleeyo cid adiga kaaga aqoon roon ama kaaga waayo aragnimo badan meeshaas ay kugu hagto waad u baahan tahay laakiin isku day inaad noqotid qof go'aamadiisa qaata uguna noolaada noloshiisa sida uu doonayo bara waxaad adigu jeceshahay kana bara meesha aad adigu jeceshahay dooro waxaad xidhanaysid Soomaalida markaynu inagu Soomaali aynu nahay wiil iyo gabadhba qofku waalidiintu aad bay u farageliyaan qofka dhalinyarada ah waxa uu xidhanayo wiil hadaa tahay waxa laga yaabaa in lagu dhaho mar walba khamiis xidho gabar hadaa tahay waxa laga yaabaa maanta dhan in lagu dhaho macal guriga xijaab ku joog guriga yaa ku yiri xijaab ku joog diintu kuma aysan dhihin xijaab ku joog xidho waxa adigu aad jeceshahay adigoo u eegaya dabcan inaad diintu waxay ku tiri cawradaada astur marka diintu ay ku tiri cawradaada astur ama wiil ah ama gabadh ah aad xidhatid marya cawradaada asturaya kugu dhaganayn khafiif ahayn oo laga dhex arkayn jirkaaga si fiican cawradaada u asturaya diintu waxay ku siisaa khiyaaraad waasaca oo aad u balaaran kuma aysan dhihin diintu midab gooniye xidho kuma aysan dhihin mara gooniye xidho mara alla maradaad jeceshaad xidhan karaysaa midab alla midabkaad jeceshaad xidhan karaysaa waad isqurxin karaysaa maryo qurux badan oo adigu dooratay baad xidhan karaysaa adigoo u eegaya markaste inaad cawradaada asturtid iyo maryaha ay tiri diintu hala xidho hala isku asturo waalidiintu aad bay u dhexgalaan maalin dhow waxa la iga sheekeynayay wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya ku noolaa marka waalidkiisu waxay mar walba ku dhihi jireen si gaar ah aabihii ku dhihi jiray waa inaad khamiis xidhataa masaajidka waa inaad ka hadin dugsiga waa inaad aadaa dhalinyaro ma aadi kartid banaan uma bixi karaysid khamiiska ma siibi jirin baa la yiri wiilkaas iid hadii la gaaro xataa khamiis cusub baa loo soo gadi jiray kuwii hore armaajada ugu jiray in ba hal xabo loogu soo dari jiray oo cusub oo cad marka waxa la yiri wiilkaas dhalinyarada saaxiibadiisa way caayi jireen waxay ku jireen kii sheekha ah mararka qaar xoogaa waa la isku yaracaaya dhalinyaradu waa isku yaracayda qofkaas waa sheekh lagama wado waa sheekh waa caalim qof cilmiga leh laakiin waxa laga wadaa qof ka dambeeya dhalinyarada ficiisa ka dambeeyo maaragtay aan ku dhar ahayn oo ku lood ahayn oo si uun uga dambeeya dhankay doontaba ha ahaato wiilkii waxa la yiri markii uu nin weyn noqday in badanna uu sidaa ku jiray dhalinyaradu ay caayi jireen waxaana uu iskaga dul qaadan jiray maadaama waalidkii ku khasbayo baa markii dambe uu soo tahriibay wuxuu noqday dadkii soo tahriibay ee Yurubta galay Yurubta markii uu sidaa u tagay waxa la yiri markiiba wuxuu bilaabay dharka inuu dhalo siisto hal xabo buuma yar oo maarт buuma ciyaalka banaanka ku ciyaaraan kubadda buuma yar inuu soo gato iyo fanaanad yar waxaan ku wax Allah wixii maskaxdiisa iyo maankiisa ka soo dagay inuu sameeyo inuu wiilkaas waxad ka bax sameeyo صح wax walba sameeyay isaga loo qorayaa cidna loo xisaabin maayo laakiin cabiida faraha badan iyo jujubka faraha badan dhibaatooyin badan bay keenaan marka dooro adigu waxa aad xidhanaysid
adigu dooro waxa aad xidhanaysid. Waalidiintu waan ogahay inay faragelin badan ay ku hayaan awlaadooda, inaan loo ogolayn inaad adigiyo is asturayo oon gaal ahayn oon dharka siibanaynin oon isqaawinaynin, haddana aan lagu ogolayn dhar aad jeceshahay ama aad dooratay inaad xidhatid. Marka dooro waxa aad adigu xidhanaysid. sidoo kale dooro adigu goorta iyo qofka aad guursanaysid. guurka daba ka riix bay in badan dadku ku galaan. goormaad guursanaysaa sida lagu hayo baa laga yaabaa marka dambe intay kaa badato inaad qof ku turunturooto ood ku dul dhacdo. qof ma tahay iskaga dul dhacdo. marka dooro qofka aad guursanaysid. doorana adigu goorta aad guursanaysid. sax guurku waa irsaaqad sida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka irsaaqada fara badan uu siiyo. waa irsaaqad Ilaahay bixiyo. qofkii Ilaahay ku qoray iyo goortu ku qoray baad guursanaysaa. laakiin doorashada wali Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inagu ina siiyay inaynu wax doorano. marka adigu dooro qofka aad guursanaysid. yaan lagu doorin, yaan lagu dhihin adeertaa guurso, in abtigaa guurso. waxa weeyaan marka adigu dooro qofka aad guursanaysid. doorana goorta aad guursanaysid eed guurka adigu diyaar u tahay eed og tahay inay kaa go-an tahay inaad guursato adigoo u meel dayanaya oon guurka uusan ahayn igu soo orod iyo wax lagu degdega midna uu yahay. inaad ka fiirsatid maxaa yeelay qofkan waxaa laga yaabaa inay berri ka maalin awlaad idin dhex marto. labada qof intay kaligood yihiin wax walba oo soo dhex mara way ku kala tagi karayaan hadday isfahmi waayaan. laakiin markii ay awlaad timaado waxaa laga yaabaa in badan loo daneeyo ilmaha dhexdiina yaala. si walbood qofka iskugu xumaataan iyo si walbo aad u kala tagtaan meeshii haddii ay awlaad taalo dhibaatada idinka dhexdiina taala saameyn bay ku yeelanaysaa awlaadiina. mana kala go-aysaan oo ma tihiin laba qof oo kala tagaya. dooro inaad adigu waalid noqoto. doorana ilmaha aad dhalaysid. sax labaduba waxay ku xidhan yihiin Allah raxmaanka ah. Ilaahay haddii uu kuu qoray inaad waalid noqotid unbaad waalid noqonaysaa. haddii uu kuu qoray ilmaha intuu kuu qorayna waad dhalaysaa. ka badanna dhali maysid, ka yarna dhali maysid. laakiin marka hore hadda ka hor baa waxaan daawaday gabadh YouTuber oo ka hadlaysa nolosheeda bay ka hadlaysay. marka waxay lahayd anigu ma doonay inaan ilmo dhalo. waqti hore ahayd aad baan ula yaabay. waxaan lahaa qof aan doonayn inuu ilmo dhalo dee adduunyada muxuu ka qabanayaa? iskaga taga adduunyada waxaa loo joogaa waxay tahay inuu qofku ilmo dhalo. hadduusan doonaynin qofku inuu ilmo dhalo dee adduunyada iskaga tago. muxuu ka guursanayaa aslanba haddii uusan doonayn inuu ilmo dhalo? fikirkaasaa igu jiray. aad baan warkeedii u qariibsaday. maalmo dhan baan yara celcelinay, yara ku miitaanaynay gabadha warkeedii. waxayna ka mid ahayd dadka aan YouTube-ka kala socday in ku xidhanahay bay ka mid ahayd. Soomaali ma aha gabadhu, dabcan waa Carab. gabadhii muddo badan markaan hadalkii yara celcelinayo isla hawreedha taas waa mid ka boodsan. muddo kadib waxay la wacyigaygu ugu hooseeyay ku saabsan meesha ay iyadu ka hadlayso. ninbaa waxaa laga sheegay inuu guursaday naag aad u foolxun. kadibna reerkoodii dadkoodii ay ku dhaheen naagtan way foolxun tahay, maxaad ku fashay? aadna wuu u jeclaa naagta. wuxuu ku yiri dhankan anigu ka jooga ka soo mara ka arka, yacni dhinacan anigu ka arkayo. marka dhinaca iyadu ka arkayso ama wacyigeedu heerka uu yahay heer aniga wacyigaygu ma gaarsiisnayn. muddo kadib waxaan ogaaday inaad ilmo iska dhashay ood ilmaha keento. adduunyada haddii aad ka tagto ood aakhira tagto wax walbood adduunyada ku samaynaysay waa lagula xisaabtami. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku weydiin maayo maxaad ilmo u dhali weyday. yaa kugu xisaabi maayo ilmo ma aadan dhalin. laakiin inaad ilmo dhasho ood si fiican u tarbiyeyn weydo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kugula xisaabtamaya. marka haddii aad ogtahay ilmuhu waa mas'uuliyad iyo xil. haddaad ogtahay inaad mas'uuliyadda ka soo baxaynin, haddaad ogtahay inaad maartay lagugula xisaabtamaynin, go-aanka adaa iska leh. haddaad rabtana ilmo dhal, haddaad rabtana ha dhalin. marka dhinaca ay gabadhaas ka arkaysay mawduuca ama dad badan kaligeed ma aha, tusaale baan u soo qaatay dad badan oo noocaas ah jira doonayna inay ilmo dhalaan. si marka loo eego way ka fiican yihiin dadka ilmaha dhalay ee ilmahooda dayacay. ilmahoodu banaanka ku koraan, ilmahoodu meelaha ciyaalka lagu tarbiyeeyo ay ku koraan, ilmahoodu iyagoo gurigoodii jooga tarbiyana aan siinin, niyadana ka dila ilmihii. way ka fiican yihiin listi naftaa yare nadiifta ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maaragtay ku siiyey inaad maskaxda ka disho ood xumaan ku beerto ood lumiso ood meesha tarbiyeyn lahayd, wanaajin lahayd, qurxin lahayd, kobcin lahayd, korin lahayd. marka dooro adigu inaad waalid noqoto iyo ilmaha intaad dhalaysid. dadka qaarna waxay dhahaan waxaan doonayaa inaan dhalo 3 ilmood 4 ilmood
naag shaqaalaha noo joogtay hadda ka hor yaana sheekooyinka idinku dheeraynin waxay tiri 3 ciyaal ay haysatay marka intay nala joogtay bay uur yeelatay ilmihii afraad bay dhashay waan iskala sheekaysanay maalin iyadoo guriga hagaajinaysa waxaan ku ilmo doonaysa inaad ilmo kala dhasho naagtu waa carab marka masaari weeyaan marka waxay tiri bisinkeeya yaasiinka kulaha habba igu soo sheegin ilmo kale afar haddaaban badiyay intaan u socda anigu majeesh baan maaragtay tarbiyeynaya waan korinaya marka ma ahan Soomaalidu waa dadka ilmaha ugu badan dhala inkastoo la helayo dad inagoo kaleeto oo ilmo badan iyaba dhala laakiin marka la fiiriyo waa dadka ilmaha ugu badan dhala waxay dhalaan 1 2 3 ilmo inaad iska dhashid fara badan tirada ilmaha muhiim ma aha tayada ilmaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala intuu ku siiyo baad horta dhali laakiin intaad haysatid tayadooda ka fikir in quman oo tayo leh oo wanaagsan oo tarbiyeysay oo si fiican u korisay oo maskaxda ka dhisan oo jacayl siisay oo sinaan siisay oo cadaalad siisay halna Allah ka dhigay hal ilmana Allah ka dhigay ama laba ilmana Allah ka dhigay labada oo si fiican u tarbiyeysay ku daashay baa ka fiican 20 aadan tarbiyeynin ku daalin maskaxda ka dishay cuqdad iyo balaayo ku beertay aadan wax inaad ka jarta mooyee waxba aadan ku soo darin marka dhinacaasna in laga fikriyo laga fiiriyo way fiican tahay dooro adigu inaad waalid noqotid doorana inaad inta ilmo aad dhalaysid hayla cidna kuma dhahayso ilmo dhal dad waan ogahay dad badan waxay dadka ku booriyaan bulshadu ay waliba si gaar Soomaaliyeed dadka ku boorisaa inuu ilmo badan dhalo ninku markuu naagtu la 4 3 ciyaal u dhasho waxa la dhahaa naag kala guursi ciyaalku ku bataan xagee u socdaan ciyaalku maciidan wuxuu doonayaa inuu doorashada ka qayb galo u codeeyaan ilmo badan oo tiro badan inaad dhashid waxa ka fiican ilmo yar oo tayo badan inaad dhashid oo si wacan u tarbiyeysato xoogaaga iyo dadaalkaaga iyo maskaxdaada iyo hantidaada wax kasta isugu geyso waxaan filayaa taana inaan isla fahamnay dooro takhasuska aad adigu doonaysid waa mowduuc aad u mug weyn una baahan muuqaal gooni in lagaga hadlo haddaad u baahan tihiin hoos igu reeb qaybta commentiga waxaan ka soo sameyn doonaa muuqaal sidaad u doorataa takhasuska jaamacadda aad doonaysid takhasuska aad doonaysid ee jaamacadeed dooro marka takhasuska adigu aad doonaysid Soomaalidu aad iyo si guudba waalidiinta duniduba waxay aad faragelin ugu hayaan ilmahooda markii uu dooranayo takhasuska jaamacadeed uu doonayo isagu kuliyadda uu doonayo takhasuska aad dooranaysid ku dooro 3 ku dooro kow jacayl aad adigu wax u qabtid inuu yahay takhasuskani waxaad adigu waligaa ku haminaysid inaad baratid waxaad aad u jeceshahay oo qalbigaaga aad ugu dhow inuu yahay maxay la jacaylku wax buu sahlaa marka qofku uu wax jecel yahay adduunyada wax adag ma jirto kownkan waxa yaalo oo dhan qaadirku adigu ku fududeeyay inaad jeceshahay ku dooro kow talabaadna ku dooro tabartaada inuu yahay waxaad adigu ka bixi karayso wax adiga ku sahlan oo rabbi ku sakhiray inuu yahay oo ku fudud hadii aad gashid aad ka gulgaari karaysid hadii aad uu yahay ku dooro tan saddexaad ku dooro inaad haysatid garab iyo caawimaad aad helaysid salahan aabaha ama adeerka ama abtiga qof familkiina kamid oo dadka ku dhadhow ah baa waxay yihiin engineer ah marka hadii aad dooratid takhasuska engineernimada waxaad haysataa bii'o ku fududeynaysa inaad ku guuleysatid takhasuska aad dooratay waxaad haysataa wax ku siiya hordhac gogol dhig ku siiya waxa aad u baahan tahay iyo cid dabada ka riixda cid markay wax kugu adkaadaan ku caawin karaysa garab baad u haysataa marka saddexda qaybood baa ku doora takhasuskaaga yeesan cidna ku doorin wallahi been ma sheegay waxaan hadda ku hor arkay Masar aan ku arkay gabadh Soomaaliya waxa laga soo diray Soomaaliya laga soo diray gabadha marka waa gabadh yar waalidkeedu waxay ku dhaheen oo shardi uga dhigeen hadii aad doonaysid jaamacad inaad aadid waa inaad dhakhtar noqotid wadada kaliya ee jaamacad kuugu diri karayno jaamacad kaaga bixin kareen lagama bixinaynin waxay ahayd scholarship aan biil kuugu soo diri karayna waxay tahay inaad dhakhtarnimo baratid hadaba gabadhu kow maysan jeclayn dhakhtarnimo inay barato waa lagu khasbay labana maysan lahayn awoodii ay ku baran lahayd dhakhtarnimadu ma aha kuliyadka fudud ma aha sax caalamka wax adag ma jirto kama wada kuliyada caafimaadku inay tahay wax adag laakiin hadii qofku uusan tabarteeda lahayn hubaal way ku adag tahay haduusan doonaynin way ku adag tahay hayla wax walba wadan doonayn adiga daahba ka saaran oo kuga adag yahay gabadh yareed waxay igu tiri markaan wadankii markay timid waxay timid wadan aysan garanaynin luqad aan luqadeeda hooyo ahayn oo u wehelisa oo ay garanaysaa ma jirto hayla intay wadan
ajnabiya timaado maysan filaynin in jaamacadda loogu sharxay casharka af Soomaali loogu sharxay maysan filaynin dantu waxay ku kaliftay jaamacaddii inay xidhato sanad ama 2 sano inay iska dhisto luqadaha inay barato Carabiga iyo Ingiriiska iyo inay iska dhisto maadooyinka looga baahan yahay caafimaadka maadaama aysan gabadha yar u jeclayn maaragtay awoodeeda wax ka baxsan uu ahaa inay is dhisto sanad ama 2 sano waxay ku qaadataba kadibna ay ardada la jaan qaadi karayso oo ay u fadhiisto jaamacadeedii dib intay u bilaabato marka dooro takhasuskaaga jaamacadeed adigu dooro waa adiga xataa haddii aad waalidku kuu dooraan ood meel dhaxamarayso ood ogaatid meeshan inaysan ahayn meel aad jeceshahay ama aad ka bixi karayso ka tago dooro meelaad adigu maaragtay aad ka bixi karaysid dooro meelaad jeceshahay ood ka lib keeni karaysid waalidkaagu ma aha cidda wax baranaysa ee waa adiga qofka wax baranaya sidoo kale waxyaabaha ay faragelinta xoogan ku hayaan waalidiintu awlaadooda waxaa ka mid ah qofka iyo xiriirka rabbigiisa ka dhaxeeya ilmahaagu markuu yar yahay baa waxaa la baraa xiriirka isaga iyo rabbigiisa ka dhaxeeya haddii uu wax wanaagsan sameeyana ilaahay agtiisa maaragtay inuu jacayl ka helayo iyo janno ka helayo haddii uu wax xun sameeyana ilaahay agtiisa inuu cadaab iyo cadho ka helayo ilmahaaga inaad ku xidhid rabbigiisa waysan jirin cid u dhaxaysa adoonka iyo rabbigiisa aysan jirin laakiin waalidiinta qaar waxay sameeyaan qofkiiyo qof weyna baa waxaa la weydiinay salaada ma tukatay waan tukaday waa lagugu celcelinay duhurkii baa tukatay waxaa laga yaabaa in lagu dhaho kuma arkaynin halkeed ku tukatay waxay ka dhigan tahay markaa waalidkaaga caabudaysa ilaahay maadan caabudaynin adiga kuumuusa tukanayn ilmahaagu wuxuu u tukanayay ilaahay allaha abuurtay buu u tukanayay xiriirka isaga iyo rabbigii ka dhaxeeyana markhaati inuu u doonto ilmahaagu uma baahna adigu uma baahnid markhaati inaad u doonatid xiriirka adiga iyo rabbiga idinka dhaxeeya xiriirka adiga iyo rabbiga idinka dhaxeeya wanaaji hadday cidi soo dhexgalayso oo qofi doonayo inuu xiriirka adiga iyo rabbiga idinka dhaxeeya uu hagaajiyo waa qofku ku waaninaya ku wacdinaya waxa wanaagsan kuu sheegaya waliba si degan oo tartiib ah kugu sheegaya ma aha qayla iyo qatajac ma aha maaragtay isu soo itaabsi ma aha marka hagaaji xiriirka adiga iyo rabbiga idinka dhaxeeya aysan qofna kugu khasbin ka qaar waxay u tukadaan ilaahu inaan sii jeedo waad u jeedaa waalidiintooda siday u qanciyaan marka xiriirka adiga iyo rabbiga idinka dhaxeeya adigu dooro adigu hagaaji adigu qurxi iyo tan ugu dambaysa haddii aadan qorshe lahayn waxaad qayb ka tahay qorshaha qof kale marka dooro inaad qorshe yeelato adigu ha ogolaanin inaad qayb ka noqoto qorshe qof kaleeto adigu dooro inaad qorshe yeelato baryahan muuqaaladu sibay u dheeraanayaan ma aniga warkaygu badan yahay moogi muuqaalkan haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto ood uga mid noqoto qoyska quruxda badan subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya qaybta hoose ee faallada noogu reeb waa inoo muuqaalka kan xiga insha allah nabad iyo caafimaad baan idinka tegay السلام عليكم.